Golaha raadinta dhismaha Jubbaland loo dhan yahay ayaa soo dhaweeyay heshiiskii laga gaaray doorashadii iyo safgaradkii dhexmaray guddigii wasiirada ahaa ee ka socday dowlad goboleedyada iyo shacabka gobolka Gedo. Afhayeenka Golaha Cabdi Daahir Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shacabka gobolka Gedo ay isku raaceen xubnaha noqonaya maamulka degmada iyagoona u gudbiyay guddigii ka socday wasiirada dowlad goboleedyada dalka marka laga reebo dowlad goboleedka Jubbaland. Afhayeenka ayaa intaas ku daray in ay ku kalsoon yihiin doorashada la filayay inay dhawaan ka dhacdo gobolka Gedo. shirka waxaan u arkaa in guul uu ku dhamaaday sida ugu wanaag badnayd dadka qaybaha bulshada rayidka oo dhan ay ka wada qayb qaateen turxaan bixin badan lagu sameeyay heshiis runtii la oran karo waa loo baahnaa in dadka deegaanka ay ka wada qaataan waxa danta ah yaa halkan ka dhacay waxaana nala wadaagay wasiirada dowlad goboleedyada afarta dowlad goboleed ka socday waxayna runtii ahayd arrin weyn oo loo baahnaa oo ku saabsan doorashooyinka waana lagu guuleystay dhanka doorashooyinka markii laga fiiriyo anagoo lagu ujeedooyinkeega mid waa dowladda federaalka Soomaaliya iyo baarlamaankeeda dhismaya midna waxa weeye waa dhismaha Jubbaland loo dhan yahay waxaan isleeyahay doorashooyinka baarlamaanka federaalka waa hirgelay aad baa loogu guuleystay dadkana waxay u soo dhaweeyeen si hagar la'aan waana u diyaarsan yihiin in halkaan doorasho ay ka dhacdo cabashada Jubbaland aan ka qabno waxay salka ku haysaa dhismaha Jubbaland maalintii ugu horeysay oo la dhisayay rabitaanka bulshada Jubbaland kuma dhismin waxay ku dhisantay rabitaanka dargigii Tigray iyo dawladda Kenya mar haddii ay ku dhisantay rabitaan dawladda shisheeye oo dalka inay dhacaan rabay ayadaas rabitaan dadweyne aysan ku imaanin muddadana waa dheeraatay oo waxay gaartay 9 sano ama 10 sano ay ku sii dhowdahay waxaad garan kartaa rejiim marka horeba dadka aysan ayaga rabitaankooda aan ku imaanin oo dawladda shisheeye ay la yimaadeen oo dalka Soomaaliya in lagu dhacal la rabay dhibaatada u geystay bulshada waxa weeye yaa sabab u ah inaanu diidna rabitaanka shisheeye oo aanu raadina rabitaan anaga aan leenahay doorashada gobolka Gedo ka dhici doonta waxay noqon doontaa mid deegaamada Soomaaliyeed markii la qiimeeyo deegaanka ugu fiican oo doorasho ay ka dhacday inuu ku soo bixi doonaan Ilaahay ka rajaynaynaa annaga ujeedka halka aan u joogna waxa ugu weyn dadka kuraasta kule Jubbaland qaybta Garbahari inaysan wax haba yaraatay khilaaf ayadoo uu ka taagan yahay kuraastaas qof gaar ah inuu sanboobin ee dadka iskale ay doortaan ayagoo raalli ku ah xildhibaanka ay soo saartaan oo ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya taasoo noogu weyn himiganaga inaan dadka isu jiidna oo wax raalli laga wada yahay aan ka soo saarnay Garbahari insha Allah waana ku guuleysan doonaa dadkana waa nagu aaminsan yihiin arrintaas Xamda Mataan Hirshabelle TV Jowhar